qaar ka mid ah ururada bulshada ee ka jira caasimadda Hargeysa ayaa door muhiim ah ka qaatay ololaha nadaafadeed ee laga fuliyay gudaha caasimadda. ururadan ay ka mid ahaayeen ururada haweenka ee degmada Gacan Libaax, hay'adda Gaafo oo iyaduna soo dirtay ardayda ay xirfadaha kala duwan barto, iyo ururada macallimiinta. dhammaantoodba waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin wadankooda ay nadiifiyaan, gaar ahaan caasimadda, isla markaana isbarbar taagayaan dawladda hoose caasimadda Hargeysa. si mug iyo miisaan aan uga qayb qaadanay ololaha nadaafadda ee caasimadda Hargeysa ee hogaaminaya maayarka caasimadda Hargeysa. runtii waxa weeyaan waxaana soo kiciyay dareen wadaniyadeed iyo ku macalinimo anagu badan aynu markaa barbarka ka baxda waa bakayla qaleen iyo inaanu kala hadhin baan leenahay. arrintaana maayarka iyo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa. waana horumar weyn oo la taaban karo oo runtii intii Soomaaliland ay jirtayba ayna ololayaasha noocan oo kala shayguna wuxuu qiimo leeyahay marka la joogteeyo. arrintaas markaa waxay nooga muuqataa joogteyn rasmi ah oo aan kala go' lahayn. haddaanu nahay ururkii macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland shaqeynana macallimiintana waxaan ku boorinaynaa in ololo kasta oo noocan ah oo la qaadayo inagu aynu hormuud ka noqono oo aynu qayb muhiim ah ka qaadano degmo kasta iyo gobol walba, gaar ahaan caasimadda. waxaan bogaadinayaa nadaafadan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo dadweynuhu ay ka qayb qaadanayaan sida habboon ee looga qayb qaatay. sidaas leeg baan anaguna macallimiin ahaan uga qayb qaadanayna. waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka dhammaan bulshooyinka caasimadda Hargeysa inay sida ugu habboon iyaguna uga qayb qaataan, maadaama uu caafimaad ku xidhan yahay. Xashirlaa Ibrahim Maxamed ana xogayaha guud ee ururka macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland Solta. waxaan maanta ka qayb qaadanaynaa ololaha nadaafadda caasimadda Hargeysa, gaar ahaan wadada halbowlaha ee suuqa Hargeysa agagaarkeeda. waxaan aad iyo aad halkan ugu hambaleynayaa dhammaan goloweynaha deegaanka ee goloweynaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo hogaaminaya maayarka deegaanka iyo xogayaha guud ee dawladda hoose. runtii ololahan aan wadnaa waa mid aan ku nadiifinayno caasimaddeena xashiishka. waxaan ogsoonahay in xashiishku intuu inoo jiro cudurku inoo jiro. ka macallimiin ahaan maadaama anagu nahay macallimiinta qarankaan nahay, waxaanu sidoo kale ardayda waxaanu iyagana ku dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan sidii loo nadiifin lahaa, looga qaybgeli lahaa